بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. walaalayaal kusoo dhawaada barnaamijkeeni kaabna ku saabsanaa magaciisa ayateyn barnaamijka ayateynka weliba qeybta labaad. Qeybtan waxaan rabnaa inaan uga hadalno cabsida ilaahay iyo in qofka bini'aadamka ah uu ilaahay la socdo meel walba oo uu joogo, iyo si kasta oo aad meel kasta u joogto inuu ilaahay kula socdo, oo la rabo qofka cabsida la imaanaya inuu ku xisaabtamo in alle uu mar walba uu la joogo. Sidoo kale waa maxay ciwaankiinu waa ittaqillah, ilaahay waxaad ka cabso, waclam ogow ana camera almuraaqaba camera almuraaqaba waxaa la yidhahdaa CC camera caadiga. Waxaa ogaataa marka CC cameradu marbuudatun bika fi kulli makaan, meel walba aad joogto inay kugu xiran tahay kamarada alle. Annaga hadda camera u naqaano, balse waa maxay ilaahay isaga mid ka casrisan oo uu asagu bini'aadankii baa CC camera wax laga abuuray, marka mid ka badan oo waa maxay ka casrisan inuu ay kugu xiran tahay la soco meel kastoo aad joogtidna alle inuu kula socdo. bini'aadankii meeshuu CC camera sameynaya alle maxaa moodaa fi kulli makaan tadhab, meel kastoo aad tagto. Marka cabsida ilaahay qofka la imaanaya waxaa la rabaa qofka inuu ka soo qaado inuu CC camera ku xiran tahay. Halkan waxaan ku arki doonaa laba aayadood oo xoojinaya qofkan inuu ilaahay kula socdo meel kastoo aad joogto, ama si kale haddaan u dhigno inay CC camera kugu xiran tahay iyo wax ka casrisan inay kugu xiran yihiin qofka bini'aadamka meel kasta uu joogo. marka walaalayaal ittaqillah waclam ana camera almuraaqaba marbuudatun bika fi kulli makaan. Aayadda koowaad marka aan rabno inaan ciwaankeena ku dabaqno ee ah inay camera kugu xiran tahay. Aayaddan baa waxaan arki doonaa macnaheeda. Waxaa laga yaabaa dad badan oo kamid inay fahamsan yihiin, dad kamidna aysan aad u dhuuxin aayaddan. Aayaddan nebiga marka hore la hadlaysaa, balse wax kasta oo nebiga lala hadlayo marka aadna akhrinaysid waa isku dabaqaysaa sida caadiga. Marka waxaa la rabaa maxay inaad dhuuxdid waxa ay sheegayso aayaddan. Aayaddan waxay sheegaysaa marka وما تكون في شأن وما تتلوه منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وما تكون في شأن حالة كمسوني وما تتلوه منه من قرآن وما تتلو من أخرج منه من قرآن ما أخرج ولا تعملون من عمل لما قبتد إلا كنا عليكم شهودا إلا كنا هديئات إلا كنا أنه وحنا عليكم أدينك شهودا ومرقاتي وأركة. هذا حالك كسوقان تاي هذا القرآن أخرينيس هذا عمل كم إذا عمل الله أتقبلنيس هي حالك كسوقان تاي معناه إذا حالك كسوقان تاي لواتني أفر ساعة معنا واحد كسوق قبلنيس إن إلهي كل صعب إلا كنا عليكم شهودا إن marka ay kugu xiran tahay camera bilaadan sameey maahan camera alle u samaystay inuu kugu xiran tahay. Tufiiduna fiihi marka aad soo haleysaan oo waxaas oo dhan xaaladahaas dhulka ku jiraan ama dhex dabaalaysaan inuu ilaahay og yahay. tufiiduna fiihi wamaa yaczumu can rabbika ilaahina kama qarsoona mithqaala daratin. mithqaala dara waxaa lagu cabiraa waxa ugu yar quraanjo ha noqoto ama waxa ugu yar oo bini'aadan il qabato ama ay shaysa qabeen. Muhiimaddu waa maxay in waxa ugu yar ka mid ah inaysan ka qarsoonayn oo fil ardi dhulka ku sugan, wax kastoo adduunka ku sugan waxa ugu yar quraanjo ha noqoto inaysan ilaahay ka qarsoonayn. walaa fi samaa samadana wax ku jira ilaahay inaysan ka qarsoonayn walaa asqara min daalika wax ka yar mithqaala darradaas ayadana waa maxay inuusan ilaahay ka qarsoonayn oo mar walba ilaahay la socdo kaamiradiisa iyo waa maxay aqoontiisa iyo cilmigiisa
inuu ilaahay asugu kula socdo waaye walaa akbar iyo wax ka weyn taas inuusan ilaahay maanta ka qarsoonayn marka aayaddan saasay dabaqaysaa ilaa fi kitaabin mubiin aayadda labaad ee aayatooyinkeena ka mid ah waxa waaye aayad ayadana xoojinaysa in alle uu kala socdo mar walba oo CC kaamiradiisu mar walba ama asaga cilmigiisa iyo aqoontiisa uu mar walba kala socdo يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ومعهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان له بما يعملون محيطا أيضا waxay aydan tilmaamaysaa يستخفون من الناس dadka iska qarnayaan baa layidhi walaa يستخفون من الله ilaahayna iskama qarnayaan وهو معهم asagoo la jooga إذ يبيتون markay farayaan ما لا يرضى wax uusan raalli ka ahan oo min القول qola waxay ka dhigantaa dadkan qaar baa waxay sameeyaan inay dadka iska qarinayaan balse waa maxaa lihii arka allihii hadda aan soo sheegnay oo mar walba kula socda iskama qarinayaan ayagoo falaya weliba wax uusan ilaahay raalli ka ahayn aayaddan sheegaysa marka aayaddan ayaduna waxay xoojinaysaa in alle mar walba kula socdo oo wax kastoo aad yubayituuna maa laa yardaa macnaa marka wax kasta oo uusan raalli ka ahayn xataa markaad filaysid ilaahay kula socdo من القول أو قول ha noqdo iyo wixii kalaba وكان الله بما يعملون محيط ilaahay wuxuu yahay waa maxay mid kooba wax kasta oo ay falayaan waay marka aayaddan waxay xoojinaysaa in qofka mar walba dadka qaar inay iska qariyaan macnaha alle iska qariyaan dadka meeshii alle iska qarin lahaayeen tanna maalinka qiyaamana sida aad ogtihiin waxaa lasoo bandhigayaa ama waxaa la is xisaabinayaa qof walba wuxuu socday haddii ka waran qof kasta CC kaamiradiisa loo daaro ka waran yaa ileen meesha hadda waxaan ognahay waxaa waaye in alle uu bini'aadankii wax uu samaysto wixiisu ay ka weyn yihiin haddii CC kaamira ahaan lahayd iyo haddii cilmigiisa ahaan lahayd ilaahay uu kula socdo haddii marka CC kaamirada lagu daaro min bilow maalinkaad dhalatay ilaa maalinkaad dhimatay waa dareemaysaa de oo haddana meeshu tahay meel qiyaamo dadka lagu xisaabinayo ilaahay markaana asturo sidoo kale waxaa jira xadiis asana xoojinaya aayaddan oo ah albiru xusnu lkhuluq waalithmu maa xaaka fii nafsik wakarihta an yadala calayha naas horta ithmi maxaa la yidhahdaa dembi maxaa la yidhahdaa albiru horta sida caadiga xusnu khuluq waaye waa maxay xusnu khuluq qofka dabeecadiisa wanaajiya waaye baa wanaag oo dhan ba ah ileen markii nabiga lalahaa maxaa geliya jannada dadka ugu badan waxay nabigu wuxuu ku jawaabay xusnu khuluq taqwa allahi wa xusnu khuluq buu yiri macnaha waxay ka dhigan tahay dabeecadda wanaagsan iyo cabsida alle ka cabsato labadaasaa geliya marka wal ithmu dembiguna maa xaaka fii nafsika waa wixii naftaada dhiba dee waxaa laga waxaadan mar aad ku jecsanayn ama raalli ka ahayn mataqaana aad iskala xuntahay mararka qaar sidoo kale dembiga waxa lagu gartaa wakarihta calayhi an yadila calayhi naas inay dadku ku arkaana waa ka baqaysa marka waxyaala badan waxaa jira qofka bini'aadanka dadka inay ku arkaan uu ka baqay marba haddaa arkan dadkii aad kala dhuumanaysid oo dadkii aad necabta inay kugu arkaan marka sifo wuxuu leeyahay waxaas sifo dembi uu leeyahay walithmu maa xaaka fii nafsika wakarihta calayhi an yadila naas marka waxaas dembi bay soo gelayaan marba haddii adigiina dadkiina waa kala dhuumanaysaa adigana kuma jecsanid waxaas marka dembi bay ithmu bay noqonaysaa marka intaasaan rabaa inaan kusoo koobo kilibka koowaad kilibkii labaad oo ah ku saabsanaa barnaamijka aayatiinka aan kusoo qaadana laba aayad oo waa maxay muhiima intaan barnaamijkeena saddexaad ku kulmin doono waxaan kaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu